بسم الله الرحمن الرحيم أنيقو حلدبان محمود عبد الرحمن بينه waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo labada maamul Puntland iyo Somaliland dagaalka soo noqnoqday dad badan oo Soomaaliyeed oo ay ku naf waayeen waliba ayadoo lagu jiro bil Ramadaan ah oo de markasta dhiig in la daadiyo xaq ma aha laakiin marka ugu daran bil cibaado Ilaahay dadka muslimiinta oo ku waajib yeelay inay cibaadaystaan inay dad Soomaaliyeed dad maata ah ciidamada labada dhinac inay naga dhintaan waqtiga hadda la jooga marnaba arin laga murgoodo waaye waxaan aad uga xumahay intii naga dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawaca Rabbi caafimaad degdeg ha siiyo inta dhibaatada ku dhacday ee meesha degneed ka qaxday amaba dagaalkaas dadtiisa ugu qaxdayna waxa Ilaahay ugu mataqaan ugu baryaa inuu Ilaahay u fududeeyo amuuraha iyo rafaadka ay ku jiraan ilmo yar baa dhibaato ka soo gaaraysa hooyooyin iyo familiye iyo mataqaana dad odayaal oo daal ah bay dhib ka soo gaaraya aad iyo aadan ugu xumahay waxaan u soo jeedinaa madaxweynayaasha labada maamul shacabka wax garadka inay arintan u istaagaan dagaalkan mar daba inuusan dhicin inuusan wada hadal iyo in la isla wada hadlo in lagu xaliyo mushkilada ma u dul qaadan karno waa musiibo inay qof kale naga dhinto ayadoo waliba bil Ramadaan lagu jiro oo ay ka dhib badan tahay bilaha kaleento labada maamul waxaan u soo jeedinaynaa walaalayaal arintaas la joojiyo wada hadalna loo bedelo inta dhimatana Allah u naxariisto inta dhaawacantana caafimaad kaamil Allah siiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.